shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaan makarafa kala dhex qaaday waxaanan weydiiyay bal sida ay arrintaasi u arkaan waxa weeyaan dad kale farmaajo imanaya iyo waxaasi wax dhacaya maaha waxa weeyaan xabad baan naga xigta ninka waqtigiisii uu dhacay 3 sano dalka haystay dhibaato badan buu inoo geystay ma inaan la kulanno waajib maaha anigu waxaan u arkaa farmaajo haddii uu maanta yimaado waddanka in goonistaagii laga noqday marka ma ogolin inuu yimaado waddanka raallina kama nihin haddaanu nahay ummadda reer Somaliland isagoo ictiraafka kaga dhawaaqa halka uu ka imanayo markaa wuu iman karaa laakiin intaanu ku dhawaaqin inuu yimaadaa uma arko inay maxay ahaydey Somaliland wax faa'iido ugu jirto marka sidaa daraaddeed yaanu imanin ayaan anigu leeyahay arrintaas waa arrin aad iyo aad oo aan wax la qaadan kara aan ahayn waad ogtihiinoo waa nimanka aynu ishayno ee Soomaaliya kanina waxa weeye waaba kii aynu islahayn waa kii inoogu darnaa in la yidhaahdo maanta farmaajo imanaya Hargeysa macnaheedu waxay tahay macnaa federaalkii baynu qaadanay dee arrintaanu aad iyo aad baan uga soo horjeedaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan ku ogahay in aad iyo aad qaranka abaal ugu lahaa oo raggii ka mid ahaa odayaasha ahaa ee halgankii u malayn maayo arrintaas inay hoos maraysee waxa arrintan meesha wixii jira hala noo sheego aniga Axmed Xasan Mataan waa arrin aan la yaabanahay farmaajo Hargeysa imanaya nimaan noloshaadii iyo jiritaankaagii iyo waxa tahayba aan aqoonsanayn oo aan garowsanayn ayaa madaarka ka soo degaya oo maanta ku hamiyay taa taan waxaan arkaa mala walayna dhalo rogay dad fayoomanihine hadduu maanta farmaajo taa ku xisaabtamayo ninka ka yeelaya ka waalan laakiin arrintaasna inayna dhacayn baan u malaynayaa laakiin riyaariya ila tahay aniga magacaygu Gulad Xasan tani anagu haddaan nahay dhalinyarada Somaliland oo gaar ahaan caasimadda Hargeysa yeeli mayno farmaajo imanaya waxaan suurtagelayna weeyaan macquul lama farmaajo hadduu yimaadana anagu waa nin yani diidan dalkayagii ictiraafkiisii iyo waxayagii 3 sano u daba soconaa ninna diidan inuu halka soo dego yeeli mayno dagaal baan uga soo horjeednaa walaa xaaga walaa madaxweyne walaa cid soo dhawaysan anagu ma rabno madaxweyne waxaan fariin u dirayaa dhalinyarada niyadda ka jabinin waxaan leeyahay madaxweyne adigu dalkaanu ku dhiibanay dalkan nala tasho waxaanu yeelana waanu yeelnay waxaanu diidnay waanu diidnay dawladuhu markay heshiiyaan ayay dasboqdaan laba dawladood baynu nahay marka ma farmaajo hadee inala heshiiyo Somaliland buu aqoonsado miyuu ogolaaday muxuu ku imanaya dad way isweydiinayaan marka waxaan u arkaa mar hadii aanu hadduu inoo ogolaado iman kara laakiin mar hadii aanu heshiisiyo tanaasula ummadan 25 sanadood baynu Somaliland ahayn Soomaa marka farmaajo wuxuu ku iman karaa anu qabaday isagoo tanaasulo aynu heshiis galnay wala magacaygu yahay Guule Jaamac Cabdilaahi waxaan u arkaa qalad waayo muxuu ahay madaxweynaha Soomaaliya ee Soomaaliya uu maamulo Somaliland ma maamulo waxa fiican meel kale iyagoo ku wada hadla oo dadka Somaliland ay ka go'do Soomaaliya madaxweynaha waxaan leeyahay ummad baa ku soo dooratay ummadii ku soo dooratay muxuu ahay waa inaad kalsoonidoodii iyo sharaftoodii ilaalisaa imaashaha marka hore wax ka horeysa in la soo wada hadlo oo guddi xaanta soo galan sheekada baash marka la soo diraan riyada soo bislaatay inuu halkan yimaado laastiga ma aha iska yimaado macnaha ku yimaado weeyaan haddaba inuu aqoonsan inuu aanu aqoonsi noo siin wuxuu imanaya khalada Batri Koosar Maxamuud telefishinka Sahan Hargeysa